بسنك وغادني بسم الله بانو نيري سلينك وغادني إيو سورة دي قرآن إلهي مهدي منكي كدوغانتاي ولا لهي دريريان دولغا هلين ودارين وين ربي يونضابخا ولا لهم دريريان دولغا هلين ودارين وين ربي يونضابا خير ninkii meelegii galaa meelna kuma baxsado malagii baa qaadayo mawdkii baa la tegay saleebaan maxamed sulbigiisi baynu nahay saleebaan maxamed sulbigiisi baynu nahay doqonka wadadooda duulanka wada bedela baroon rooraya iyo basukaana rogay annagu ordi weynay ubaxina waa sidnaa bisinka waa qaadnay bismillaahi baanu niri saleebaan maxamed sulbigiisi baynu nahay doqonka wadadooda duulanka wada bennida baroon rooraya iyo basukaana rogay annagu ordi weynay ubaxina waa sidnaa annagu ordi weynay ubaxina waa sidnaa dawalaalahan diriirayaan dawa laga helayn waa dareen weyne rabbiyownaadaaba khayr dirweynaa yimiyo daaroodna waa dhanyaay madaxdii baa joogta muslimkiiba wada fadhiya madaxdii baa joogta muslimkiina waa fadhiyay saleebaan maxamed sulbigiisi baynu nahay doqonka wadadooda duulanka wada bedela bisinka waa qaadnay bismillaahi baanu حاجة مرقسن تهي تدمير لبانو حشام اسم قلبي نور ما تدوى لغرتا اسم قرمينا نور ما تدوى لقررتا حتى يحاج هرب مذهبي تحي وجهل اسكما ديجي مقعاق سيوجرو مدروا لقد عشا الساقا ميشو مري مركيبا ولغو طيدا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كواد مهاج الله بيسكره الحمد لله رب العالمين. مركز لبعضنا aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran oo waftiga dawladda aan hogaaminayo aad u soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay inaanu soo gaaro magaaladan Rakko raka raaxo roob ay lahayn markii roob ay tahdaan ku soo noqono raaxada markaan si fiican u arkay hadana anaga ragga kanu reer baadiya aanu badanay anagu waan reer baadiya u sii haadeen marka si gaar aan ugu sii raaxaysanayna inaan ragga joogno xalana hurdo fiican baanu seexanay intii aanu qarna ka soo kacanay shalay subaxna dalka aanu soo maray dal aad u fiican oo qurux badan oo wanaagsan weeye roobku iska yaraado laakiin waa dhul xoolo daaqeena oo dhul wanaagsan dhuudayaan ka soo bilownay markii hore dabeedna aan ku soo xilday Xumbays markii u dambeysana idinka iniin nimay sidaad u jeedaan shirka halkan ka dhacaya oo maanta furmaya oo nabadaynta beelaha deegaanka Rakko waxa weeye muhiimad weyn buu leeyahay dawladda Puntland iyo shacabkeeda waa sababta aan u nimay halka waxaan dadka halkan degan Rakko degmadeedo dhan ama aad tuulooyinka Xumbays iyo kuwa kale oo yaryar oo dhinacyadeeda deg ah ama haada magaalo madaxda tan gobol degmada aad baan uga mahadcelinayaa guusha weyn oo ay gaareen inay heshiiyaan oo odayaashii dhaqanka oo isaga yimid deegaamada walaalahooda oo Nugaal iyo Bari iyo Sanaag aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa siday u aqbaleen oo maanta ay tahay gabagabadii heshiiskii sidii dhamaystirkiisii loo dhamaystir lahaa wixii qaaraamanaada oo la kala qaadanayona loo qaadan lahaa oo looga gudbo wixii kale oo waxyaha wadada yaal in laga qaado si dadkii dib isugu soo noqdo oo u wada hadlo oo u wada isdhex galo oo dadkaanu dhalashada ka sokow ay isku dad iyo degaan yihiin isla waa wada walaalo habra wadaag ilma abti iyo ilma adeer noloshii caadiga loo soo cesho sidaas aan u nidmaan waxaan idin sheegaya dadka halkan dagaaladii sokeeye oo dhibaatadeedu meesha ka bilaabatay anoo aan garanayo oo ahayd tuulada magaceeda maxay ahayd may intii horeysaa jirta waxay ka bilaabatay cartay ka bilaabatay waan ognahay say ahayd ciddii geysatana waan naqaanaa iyo beeshay ahayd dhammaystirkii halkan muddadaas dagaalkaasu socday oo lagu dhex jiray dhammaystirkiisiina waxbaa sii raacraacay oo halkan deegaanka ah baa loo tirinayaa qaybta isutuu labadaas waxaa loo baahan yahay marka in haddaan caano qurtay dagaalkooda la qabtaa haddaan colaadda la joojin oo sidaan hadda la aqbalay looga dhabayn hadda meel hadhow la arko wax injineerti oo dhacay waxay noqonaysaa waxaan loo dulqaadan doonin waxaa laydinka baryayaa inaad hadda dhib shacbi weynihii baa tihiin guddigii arrinta loo keenay meesha oo jooga iyo annagu hadda gurigaan dhabarkaygaa bay ku jiraan aan ugu tegaynaa aanu la hawlgelaynaa haddii ilaahay idmo idinka waxaa laydinka doonayaa ilowsho iyo xaladhalay ma maqasheen ya qolooyinkaasa fidmada iyo balaayada iyo inoo ka horreeyey gobollada dhinacaan bariga soo xiga waqooyi barida colaadi ma dhex mari jirin laakiin haddii belo dhacdo dee waa la ilaawaa inaan wax ka tegin wax cusub ma helo aad baan uga naxnay saaka markaan iskuulka tagnay oo galaasyada qaarkood ardadu ay aad u yarayd oo la yidhi waa lagu kala qaxay oo dadkii deegaanka ka mid ahaa oo colaaddu reer ahaan u dhex gashay oo magaalada deganaa carruurtoodii iskuul la'aan bay hadda meel kale u jiraan iyo tuulooyinkaa loo qaxiyey aad baan uga naxnay carruurtaa iskuulka gaftay iskuulka weyday waxaan kaloo ka naxnay kuwa yaryar oo iyaguna dhinacyadaa kale oo deegaamada ah iyaguna wax ku dhiganayey oo iyagana halkan loo soo qaxiyey oo guryahoodii ka soo qaxay oo buushash halakana meelahan cawsasa ku jira ayaan iyagana aad uga naxay waa wax naxdin leh marka dadka yaryar iyo xaasaska iyo maatada iyo mustaqbalka ha loo hiiliyo ma aqbasheen intaa caloolxuma ma jidho colaadi ma jirto ka dhabaya
رجودي يقول لها يا ماشى إلهي خير هسي عود خير طبعا هسي قبلها نقل بين الهاجري قبلها عرورتها على لكوري وهلو لكوري وسيدي نقل كو هاجري هلو لكوري وأتقرنا يستعد مركا ذكينا والله سكسو علينا ويل حنا داركتان وخربان أما شيدان في ذلك جتشلو أما عندي صوت دريسو iska qaf gacanta noo soo geliya anaga kaxaynayna inana fal baan geeyna oo soo noqon hadii ilaahay xabsiyaas waa weyn oo boosaaso iyo meelaha shishe baan geynayna gaalka ay meel socod ka garanay meelahaas waa lagu xirayaa marka waxaan inii sheegayaa oo kale dalkeena inaad warqabtaan waa fiican tahay raadiyaashu ma soo gaaraan halakan maxaa yeelay raadiyo short waves ma qabno waa samaynaynaa hadda ku faali jiraa hadii ilaahay idmo raadiyaasha yar ma yimaado waxaa ku dayaarinaa meelaha in mid la keeno qolooyinka private-ka abaale si warku inii soo gaaro inuu kuma filla BBC-da iyo Voice of America qaarkood qaar dad run baa ka shaqeeya oo colaadda ka shaqeeya qaarkood ka shaqeeya oo Soomaaliya oo colaad riman ma qarino kuwa weliba meelaha qaarkood ku dhagan idaacada caalamiya oo loogu talagalay inay adduunka khabar ay kala gaarsiiyaan bay ka shaqeeyaan laakiin dadka ay u dhiibtay ma yoga qaar aan dacweyne baa jiro meesha laga saaray kuwa kale hadda fidmada wadana waa dacweynayna hadii ilaahay ma dadka isku dira bal wax ogeysiye ma taqaanay hadii laba gabdhood meel isku darbaaxdo labada gabdhood waa wacayaan telefoon baan ma haysta waxa wanaagsan oo dhaca iyo shirarkan oo kale ma sheegaan saasoo ma ogi ma dawladaha leh waa dadka ka shaqeeya qayb ka mid ah iyagoo dhanna ma wada aad baan u cambaaraynayna waad ogtihiin Soomaaliya waxba ka socda dunidu waa u soo jeesatay halkan idinku meel fog baa ka joogtaan ricaayadaha halkaas ay sii xigaan mudug iyo nugaal iyo gobolada xagga koonfurta xiga wufuudii imaanaysay oo ka imaanaysay Soomaaliya inteeda kale garoowe shirarkii lagu dhigay xamar shirarkii loo aaday wixii dawladdu ay mashquul ku ahayd shirarkii dibadda loo aado shirkii London waxaas Maxamed ciyaarina yihiin waxaas waxa loo soo jeesay Soomaaliya wax laga qabto waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay heshiiso sideedii noqoto muxuu ahaay hore dawladeedii dhexe oo xoog li soo noqoto dawladda dhexe hadda sidii ahaan mayso taa waa ogtiin Soomaa dawlad kale jirta waa mid annagu aan madaxda ka nahay waa mid aynu go'aansanay muddo 14 sano ku dhawaad ah oo shaqaynaysay oo wax weyn Soomaaliya oo dhan tartay inaga kaliya ma Soomaaliya oo dhan bay tartay inaga kaliya la helay meesha lagu qaban dadkeenuna waa ku liibaan colaadahaas qabaa'ilka oo qoriga suuqa ku jira oo dhibaatada wada iyo argagixisada meelaha qaarkood ku jirta oo magaalooyinka waaweyn dadka ku laysa ayaa caqabad ku ah marka aqligeena saliimka soo noqdo si aynu xooggeena meel isugu wada geyno waxaanu hadda guda galeynaa oo maalmahan inii imaan doona guddigii doorashooyinka Puntland waa inii sii sheegayaa guddigaas wuxuu wadaa ergadii ansixin lahayd dastuurkeen ku meelgaar weligeena kuma jirayno dawladdu ku meelgaarka ahayd ku meelgaarka August bay ka baxaysaa innaguna waxaynu ka baxaynaa 15 April ma garanteetaa oo dastuurkeena lagu gudbinayo markii la inii soo bandhigo weliba odayaasha caaqilada iyo baan u sheegayaa iyo isimada iyo culamada iyo gabdhaha intaba markii la inii soo bandhigo dadka inii ku dooroon soo xusha oo aad ku aamini kartaan masiirkiina si ay dastuurka inii ku ansixiyaan mid lagu shuban karo mid qaad cuna mid afishaara mid calaacasha saaleh oo wixii lagu rido aakhiraba ha ahaatee haddii loo diraayo qaadanaya mid qaadini siista ha soo dirinina mid masiirkiina aad ku aamini kartaan lama wada imaan kartaan meeshee kaa soo dira gabar ha ahaado wiil ha ahaado ma fahamteen innagu waxaynu nahay dad Soomaaliyeed dhammaan dhulkeena keennay ina la shaqaysta ganacsigeena kula jira shaqooyinka inala leh khayraadka dabiiciga hadda laga shaqaynayo inala yeelan doona hadeerba ka shaqaysta qaar baa xataa baabuurtoodii marka degada laga dejinayay dibadaha ka keenay Sacuudiga baabuur ka shaqayn jiray baa keenay nimankaas waa la sheegay nimanka baabuurtaas lahaa xataa waxay ahaayeen reer xamar bay ahaayeen weliba dhinaca waqooyi xamar bay ahaayeen marka inaan meeshii la kala lahayn baa taas tusinaysa kuwa iyagu shaqaynaya oo moodaya meelii dadka dhaxaysa inay kaligood leeyihiin iyagana sidoo kale colaad weeye tan halkan maanta aanu fadhino kale madaxooda ku jirteen ha joojiye waxaan idinku idinaan cid u dhimin cidina ma dhimin iyagana intaasaan u sii diraya colaadda joojiya oo afka hadalka joojiya oo gacanka hadalka joojiya oo cadow kaliya u leeyahay cadowgiina iska dhiciya halkan cadowgiina ma jooga intaasaan iyagana u sii dhiibayna assalaamu calaykum waraxmatullaah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. idinkoo harkiiyo ceelkayo hilin waadageena idinkoo horweyntiyo ribkiyo helan waada daaqa idinkoo hortii xidiidahaa haddana u jooga idinkoo rag hilbaa dhaqee hoy isaaga baahan intii lagu hiloobiyo xurmaad ku habbaanaydeene kolna haddaydinaan kala helayn ha isku hoogina ee quluqula wax kama haysato ee dhagaalajo waqtina ma uu hayo hadi aad waa kan madaxweyneheenne dadka u mudnaa oo waa kan madaxweyneheenne murtida lahaa magacu saaraayo soomaali ugu mudnaa wanaagkii muuqda baa noogu ka marmaran abiidka madaxda noohay ku magansannay ilaahow daayin dacwadayda iga ajiib wixii aan ka doono rabbiyow diyaar ka yeel nimanka dirirayahoo aan dalkala lahayn misana isku diiro deriskiyo walaalahaa daayinow kaa baryaye nabad ku soo dabaal allow danahooda garan siitan daawada madaxda noo soo shidhiyo maamulkiyo amniga madaxda noo soo shidhiyo maamulkiyo amniga sagaal beel daaje iyo baashiyaal ku laran duqey odayaala iyo dubcad iyo gargeyl boqorkii daaroodo ergadiisa soo dirsaday nabadda ay doonayaan in hadiidinina dirka kacadda iyo daarood ha wada maqleen aqoongaabyow maxaa eedda idinka simay abbayaasheen ma weeyan urka wada imaan ilma adeertaada haydeen maxaa anfiyey maxay oo kala aarsadeen weliyo abtegee islaamnimadii maar ma ku iibsateen ma qayb baa erirahoo aan asligii ahayn mase addoonkaa ikhriiraan addeecba jirin ayatiinkiina eego ilaah ka baqa oo narta ololaysa ehelkeediyaan la noqon waano iyo degneen talow doodaydu waa waano iyo degneen oo wadaqnanayaayo diirkiinni baygu yaal oo wadabayl caafimaad oo aan danab lahayn dayaxa nuurkiisi weeyi iyo daruur fushada ihaydin wada deeqdo rabbi baan duraansadae soodaydu waa waano iyo degneen hadda derecyada sare baanow doortihiin dalkiinnii aad lahaydeen abiyo durey darartu saaraydo maalkiinnu daaqi jiray dagaal iyo kama bilowdeen dab iyo rasaas dagaal iyo kama bilowdeen dab iyo rasaas dekenada qabeel ka daayo dibuga hakada dekenada qabeel ka daayo dibuga hakada oo haydinkala deeyo rabbigi nadaayinka hadda derecyada sale baanow doortihiin hadda derecyada sale baanow doortihiin dalkiinnii aad lahaydeen abiyo durey darartu saaraydo maalkiinnu daaqi jiray dagaal iyo kama bilowdeen dab iyo rasaas dekenada qabiil ka daayo dankii uga baxa dekenada qabiil ka daayo dib uga tashada damiya baarooda dembi dhaafka aan lahayn